waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo qiso cajiib ah ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimkee ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu saari jiray ama container marka buu saari jiray ninkii maal qabeenka ahaa reer Australia ahaa Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday isoo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka wala cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu yiri waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu culimada idaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaa ii banaanayn wuu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay wiyaabay ninkii war inta oo sanaan saaxiiba ahayn oo wada mucaamaloonay maxaad igu qaadi weyday ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ii saamaxayna ku qaado gabadhiisii baa markaa inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay xambarino waxay tiri ani arintaas maskaxdeeda ma galeysay tiri war kale keen فكرت لكن مسلم كيف التلفون كيس قبضتي ولا هذا الشيء وحيت بريت ولا انكم اركان دونيا وايو وين انت ودق عين كاس ودلي ويانا ما انت كنت مد يا ابيه لا صوتي ابيه لا صوتي اي كان مالبو marka ku martay qaaday markay u timiday wuxuu marka islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas u soo gashay hoteelkii halka gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskaygii diinteeda islaamku iima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyaa adiga mahram badita mahram imatid mahram badu baahanta nabi maxamed baa yiri ninna naaga ajaaniba inuu san la kaliyoobin illa mahramkayga la jooga mooyaane alayhi salatu wasalaam taana horta qacbay ku tiri qalbigeedii diin bal ya meesha taale waxay tiri su'aal baan ku weydiinaya diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay sheeg Allah baan aaminsanahay لا تدركه الأبصار وهو
tudriku al-absaar cirka abuuray dhulka abuuray marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhii dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabaheed ay ka dhaadhicisay diinta islaamka oo labadii waalidoo da'wa weyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayada marka ayahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri quraysh adeer anu kalmad baan la rabaa inay mar kaliya yiraahdaan hadday kalmada ay yiraahdaan carab oo dhan madax bay u noqonayaan carab ajam oo dhan jizyada ka qaadayaan kalmadaasi waa maxay wala ilaaha illa allah aba jahl basaraka wuxuu yiri aj'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab 360 ilaahun caabudaynay ayaa baahidayadii dabooli karile maxamed ma waxa uu leeyahay mid kaliya caabuda war inaga kiciye buuri meesha ilaahayadeena cibaadadoodana ha ku sabirne muraadka maxamed uu kaleeyahay diintiisan ku daynayo ka hadhaya ma ina naga mariyo bay dhaadeen markay ka dareereen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagii adeerkii baas ku soo hadhay markaasuu Abu Talib ayaa yiri adeer hadal xunba kuma odhan waa sidee ma inta bay ka didayaan markaasuu adeer adigu kalmada mar ii dhabuuri qiyaamaha ku marxaati furee hal marun adigu ii dhabuuri kalmadaas maalin kasta waa u bandhigay adeerkii dacwada sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yiri adeerka Abu Talib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay markaa buu nabigu isku taagay alayhi salaatu wassalaam kolku u soo galay Abu Talib wuxuu arkay dhinaca waxa ka fadhiyay Abu Jahl ya uga soo horeey Abu Jahl baa uga soo horeey siraac xaq iyo baadilku wasgarab socdaan la socdo markaa buu nabigu u dhawaaday adeerkii ammi adeer kalimatan uhaaju laka biha inda Allah yawm al-qiyamah maalinka qiyaamaha ku marxaati fure oo han ku shafaacad qaade hal marun kalmada aniga maqashigu ka yiri la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam markaasuu eegay Abu Jahl buu eegay Abu Jahl baa ku yiri atarghabu an millati Abd al-Muttalib ya Abu Talib ma millati Abd al-Muttalib baad maanta ka weecanaysaa diintii Abu Yashin intood ka tagto diintan cusub ee Muhammad uu la yimiday miyaad rumaynaysaa oo raacaysaa oo aamusa hadana nabiga soo yarjiidiyay sallallahu alayhi wasallam adeer kalmada mar labaad igu celi buu keenay mar labaad hadana waa aamusa hadana Abu Jahl baa soo jeediyay markii uu dambeysay Abu Talib wuxuu yiri ala millati Abd al-Muttalib baan ku dhintay Muhammad oo iska keedaa buu keenay إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا ذكوا جعلات النبي قال له ما هذين كريس دلالة هذا ولادها الدلالة هداية هذا ولادها وحويان inaad dadka khayrka aad ugu yeedhid inaad kalmada u bandhigtid inaad u nasteexaysid inaad u damqatid inaad diinta u sheegtid waa shaqadaada adiga weeyaan laakiin qulubtooda annaka haynaba ilaahay leeyahay kaan doona qalbigiisa annaka nuurka iyo hidaayada qalbigiisa galinayna kaad jeclaata adigu ma hadaynaysid marka Abu Talib oo Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam adeerkiina هداية النصيب وموسى يلن سلمان وفارسين إلهي وصوحدي أبو لهب والنبي محمد أديرك اللحم ينا هداية النصيب ومو يلن بلال الحبش إلهي تبارك وتعالى وصوحدي يهدي من يشاء كودون إلهي سقهدي كودون marka ilaahay asmaadiisa waxa kamid ah al-hadi hanuuniye al-hafid wa asmaada ilaahay ilaaliye saga ku ilaalin sidoo doono kugu ilaalin maashu doono kugu ilaalin goortu doono ku ilaalin bila asbaab
سقال سقاشا كان مقع إلهي النبي محمد يري مقع ذا ونكسنا إلهي أوليه كو الله بريو باهدين كو يديس تبع علمد لين سقالية سقاشا كان مقع به مقع والبا معنى قوني وحنبارسن يحي مقع والبا معنى قوني أيو حنبارسن يحي